Faysal Cirab waxay heshiis uga galeen inay gudisi doonaan shirgudoonka yaabada isku deegaan u badnaayeen oo kale ayaa dad laga yaabay inay codkaysiin runtii way jirtay rag aan wada hadalnay oo qaarkood ii dhaarteenba ilaahay qof ku dhaaranaya ay marxaatiye lahayd xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Qodax oo ka tirsan mudanayaasha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland kana mid ahaa 6dii xildhibaan ee shalay tolo tartamay shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland oo si gaar ah ugu tartamayay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland oo ay ku wada tartamayeen gudoomiye ku-xigeenka labaad ee la doortay Cali Xaamid Jibriil telefishinka MMTV ayaa wax ka weydiiyay sida uu arko doorashadii shalay tolo dhacday ee lagaga guuleystay xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Qodax oo telefishinka waraysi ku siiyay xaafadda Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa oo uu booqasho ugu tagay dadkii soo doortay waa sida uu sheegay ayaa ugu horeynba waxa uu yiri luqmaano tartanku wax xalaala bilaadanku waa tartamaan runtii tartan adag buu ahaa oo halgan dheer buu ahaa oo soo wadnay muddo waliba shakhsiyan aan waqti badan geliyay sidii aan runtii aan golaha xubnaha sare uga mid noqon lahaa waqti dheer bay la soo martay meel dheer bay la soo martay alxamdulillah laakiin waxa guulada in si wanaagsan oo bilaa turxaana ay runtii ay u dhamaatay marka tartankaasi runtii 3 cod baa laga guuleystay 30 xubnood oo kala gobol ah 3 xildhibaan oo kala gobol ah kala degmo ah kala xisbi ah ay runtii codkaysiiyay waan ugu mahad celinaya halkan runtii maanta intii codkaysiisay dhamaantoodba waxa kale iguna runtii iga soo horjeeday oo aan codkii iguna siin xubno kale oo laga yaabaa in badankooda aanu runtii aan ood wadaag lahayn laga yaabaa isku deegaan u badnaayeen oo kale ayaa dad laga yaabay inay codkaysiin runtii way jirtay rag aan wada hadalnay oo qaarkood ii dhaarteenba ilaahay qof ku dhaaranaya ay marxaatiye lahayd marka all in all iyagana waxa weeyaan fariin maan furay waxa weeyaan wasbaranay wax cusub maaha golaha laga watirsan yahay insha Allah waa laga wada shaqeyn doonaa waan u mahadnaqayaa intii codeysay intii iga codeysana runtii iyagana waan u mahadnaqayaa oo waxaan leenahay waa barasho wanaagsan xildhibaan Cabdinaasir Qodax waxaad ii sheegtay inaad xildhibaana dhaarisay xildhibaanku Soomaha sharciyan in markuu golaha tago cid doon u codeeyo oo sida aad filaysay kugu dhacdayba dhaartaas sharci darrada aad dhaarisay may sababin sama u aragtaa dhaarta aad dhaarisay qof dibadda jooga in sharci darro ahayd oo xasaanad leh waa doortu waxa weeyaan ilaahay xuli uufu bil ahdi in al ahda kana mas'uula waxa kale idin jirtaa wala dhimanaya qof walba amalkiisa raacaya يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه أيضا بيس أنت قفكو وولالك وأبيه يهودي أريد إسك عرضنا مركا قف وحويان دمان يقف كستا مسلمة تبلنك وعد وحمهيمة إنه كعد كهذا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلهي بآياتك القرآن هذلك هو كلامك إلهي dad muslimiin nahay dhaarta ku soo koobo qofka haduu wax ballan ku qaadaya toon fuliya marka waxaan moodaa waqtigan ku jirnaa waa aakhir samiki dadku dhaarta iyo wacadka iyo ballanqaadka way fududeysanayaan shayna taasa ka muuqatay mar runta ku sheego golaha ballamo badan oo la qaaday baa laga baxay anuu ma arko faan nin ballan siyaasi ka baxay guul siyaasi ma arko laakiin waa guul darro muhiimaduna waxa weeyaan fariinta 28 mudan u diraya sida loo kala shaqo badan yahay ummadda loogu shaqeeyo ayaa ummaddu kula xisaabtami doontaa qof walba ninkii 6 soo kala subaxnimo ee golaha laga muxuu ahaayay 8 habeenimo ka rawaxa ninkaas ma uu aqoonsan doonaa qofka shaqada qaranka qabtay kii seexday ama kuwa meelaha ku qaylaya wax laga arki doonaa inputkooda iyo waxay golaha ka qabtaan baa ummaddu qiimeyn doonta waxa laga yaabaa anigu rag badan oo dad badan baa laga yaabaa hanka aan lahayn inay iga soo horjeesteen
laakiin waxaan u arkay mid xalaal oo xaq u lahaa qofku intuu nool yahay uu han yeesha hankan amba ku guulaysataa amba de markaad haday imku ii suura galo markaan ku guulaysan karaa laakiin hayaanka dheer waa inaad qofku aan ku daalin marka luqmaano de waxa weeyaan taa aad daartaasi intaasan ka jawaabi lahaa waxaan ku dar lahaa anu shalay guuldaro ma arkin laakiin spirit ay siglis insha Allah waana soo wadi doonaa haganka iyo hayaanka halkan iyo meel ka sareyso insha Allah ugu dambeyntii xildhibaan MMTV kuma hadnaqay waraysiga halkan ku siisay xisbiga wicid ayaad ka tirsanayd xisbigaagu wuxuu kugu yeeday inaad khiyaantay oo aad sir u gudbisay dhanka kulmiye oo aad xildhibaana ka goysay waad guuldaraysateen xisbigii la hadda maad sheegay inaad ka baxdo mustaqbalkaaga siyaasadeed ee axsaabta Soomaaliland muxuu noqonayaa sima aaminsantay dhaliisha dadku ku jeedinayaan Faysal Carwaabo muddo 18 sano ku siiyay saaxadda siyaasadda halkan ku soo gaadhay inaad khiyaantay anu khiyaamo kuma kicin balan iyo heshiis iyo wacad leela galay ayun baan si u hirgila ka shaqeynay xisbiga anu tacbaan galay been ma Faysalna ballanqaad bismi Faysal kaleema Faysal cirabo heshiis uga galay inay gudisi doonaan shirgudoonka oo heshiiskii baan haya waan ka xishooday maadaama xisaabta ay leeyihiin karaamo in heshiisku soo bandhigo ummadda wixii aan qoray heshiiska partnerka marka khiyaamo ma jirin labada iyaga ballankii kaga baxay ay la galeen xisbiyaduna runtii de Soomaaliland maanta ogeedo cid xisbiga tacabneed ma jirin laakiin xisbigii qabiilka isbarbar socda iyo danii siyaasiga anu waxaan qabaa waxa iga hor yimid uun dee danihii siyaasiga iyo tareernimada oo xooganeed marka Soomaaliland haddii doonayso halkan inay hor ugu sii socoto waa in dee xisbinimadii la xoojiyaa oo qofku xisbinimo xaq u leeyahay waqtigiisu gelinaya in maalmaha ka mid ah wax meel ku gaadho laakiin markii waxaad ku tacabtidba nin daaqada ka soo orday soo galo oo dee muxuu ahaayay tacabba aan gelin seniority-ga meesha ka baxaysa marka aan waxaan qabaa tan dhacday buqcad madow oo ay ku noqonaysaa xisbiyada iyo qof kastoo axsaabta waqti geliya ay buqcad madow ku noqon doontaa taasaan ani tusaale aan maanta u ahay dadka axsaabta ka shaqeynaya inay muxuu ahaayay xisbinimadooda ay dee qof walba yiraahdo ardayda xisbin wax ku waay anuna maxaa waqti u gelina marka xisbinimadii bay buqcad madow iyo bar madow ay ku noqon doontaa inuu tahay marka de runtii waxaan u arkaa guuldaro in qofku waxay ahayd in lagu ixtiraamo xisbinimada iyo waqtiga geli iyo xaqu xisbi ku leeyahay qofna tacabkiisa ciyaarda ku bixin maayo liqmaano wad tahay aan xisbiga waa ka shaqeynay ka xariya habeen gina hore uu kala hayo uu shaqeynay aan ku tabcayay arka wax weeyaan waa dariiq xun u marka oo sano xun oo siyaasadda muxuu ahaayay de barmadu man u arkay laakiin aniga alxamdulillah waan caafimaad qaba waan daayarahay siyaasadda daayarahay spiritka iyo muxuu ahaayay dahanka aan leeyahay iga joojin meysay horaan u soconaya wixii aan ummadeeda u qaban karaya ee aan ugu adeeg karaya hadiya habeena kas muhiimaduna waxa weeyaan guush golo wakiil hada maqasho waxaan dadku wakiil ka yahay labi state-ka kala deegaan baa laga soo doortay kala gobol baa laga soo doortay halka imika inuu waxaan u joogaa dadkan waa dadkii de maxamed booga codka ugu badan siiyay halkan xil gooni aniga saaran maanta bariga aan kaamay ku jira laba qodob baan u ballan qaaday koow inaan ka dhex bixin yana baahiyooda kolba taagan wixii taagan aan u hadlo oo marka de waxaan ka qaban karo ka qabto marka maanta halkan iyadana waxaan u joognaa wax weeyaan de inaan xog wareysano maadaama muddo aan kala maqnayn aan howlii kaamay ku jiray iyaguna runtii de si codkii noo siiyeen aan lagu noqon bal inaan de wareysano odayaashii iyo gudidii xaafadda iyo wixii taagnaas ka wareysano iyo halkan insha Allah xafiis baan ka furan doonaa sama balan qaad maxamed mooge gudida ayaa runtii gacanta ku hayn doonta baahiya kolba jira inuu wakiilbaana deegaan constituency laga siiyay codka inaan de wakiil ka noqdo ayaa muhiimad u tahay taasaana runtii de waajibka ugu badan marka qaranka laga yimaado ay tahay marka de inaan deegaankii iyo dadkii iyo intii de kolba baahiyahoodii aan dhageysto
maadaama dee iminka si sharciya markaa xubinnimadii baarlamaanka lagu dhaariyeyna aan codkoodii ku hadlo oo aan ka wakiilkee noqdo ayaa runtii dee isxog wareysan oo marka aan xogta kala qaadan doono insha allah waxaa ka iyaduna jirta guddi waddadaa gacanta ku haysa waan waagii kaambeenka aan ugu ballan qaaday contribution iyagana insha allah waan bixin doonaa halkan iskuulka waxaa jira iskuulkan secondary-ga maxamed moge oo iyagana galaasyo lagu kordhiyey iyaduna meel fiican maanta iyaduna maraysa iyo contribution aan ku lahaa waxaa kaloo iyaduna muhiima dee insha allah xaafad ballaadhane baahiyo badan ay ka jiraan inay dee wixii dowladda ka maqanna aan u soo dhicin doono haddii ilaahay nafta nusma insha allah luqmaan maxamed faarax MM TV hargeysa.